Assalaamu calaykum. Waa mar kale iyo muuqaal kale. Barnaamijyadeena aan kaga hadlaynay cuntooyinka kordhiya qofka culayskiisa. Ilaalinta culayska miisaankaaga waxay caafimaad taama u tahay ilaalinta quwaddaada jidheed ee qof ahaaneed. Inaad la socoto miisaankaaga inta uu yahay muhiimad ayay ku leedahay. Ilaalinta difaaca jidhkaaga. Miisaankaaga hoos u dhacaya difaaca jidhkaaga iyo maaska culayskaaga. Muhiimad ayay ku leedahay haddaba ilaalinta miisaanka jidhkaaga oo loo yaqaano body mass index. Haddii miisaankaaga hoos u dhaco macnaheedu waa inuu hoos u dhacay difaaca jidhkaaga ama aad tamar daraysay. Barnaamijkeenan maanta waxaan kaga hadli doonaa 9 cunto oo kordhiya miisaanka qofka. Cuntadeena koowaad ee kaga hadlayno waa cuntada loo yaqaano salmon. Sawirka kaga muuqata waa kalluun duban loona yaqaano salmon, lagana helo oo natural ah, lagana helo badaha. Muhiimadiisuna aad bay kugu fiican tahay inaad isticmaasho. Wuxuu ka kooban yahay 240 kaloori ayuu ka kooban yahay. Sidoo kale wuxuu qani ku yahay fat ayuu qani ku yahay. Fatka oo loo yaqaano saturated iyo unsaturated. Marka wuxuu qani ku yahay unsaturated fatka. Sidoo kale wuxuu qani ku yahay waxyaabaha loo yaqaano nutrientska ay ku jiraan omega 3 waxa loo yaqaano oo kordhiya tamarta jidhka iyo cufnaanta qofka jidhkiisa. Sidoo kale wuxuu ka kooban yahay waxyaabaha loo yaqaano proteinska. Waa cuntadeena koowaad. Cuntadeena labaad ee kaga hadlayno barnaamijkeenan waxa loo yaqaanaa dried fruits baa loo yaqaanaa. Dried fruits waa cuntooyin badan oo isku dardarsanaysid kaas oo sameynaya macno gaar ah iyo magac gaar ah loona yaqaano dried fruits. Dried fruits sawirka kaga muuqata wuxuu ka kooban yahay cuntooyin fara badan oo la isku dardaray sida muuska, liin dhanaanta, lowska, sisibta. Waxaa isku jira cuntooyin badan oo aad iyo aad muhiimad kugu leh miisaankaagana ah mid ilaalinaysa. Wuxuu ka kooban yahay proteino iyo carbohydrate 230. Waa cuntadeena labaad. Cuntadeena saddexaad ee kaga hadlayno barnaamijkeenan waa dark chocolate baa loo yaqaanaa. Dark chocolate-ka la sameeyo wuxuu ka kooban yahay waxaa ku jirta protein aad u sareysa. Sidoo kale waxaa ku jirta fat aad u sareysa. Sidoo kale waxaa ku jirta carbohydrate aad u sareysa. Sidoo kale wuxuu ka qayb qaataa sunta ka saaridda jidhkeena oo antioxidant ayaa loo yaqaanaa. Sidoo kale wuxuu kordhin karaa maaska culayska jidhkaagana wuxuu ka saarayaa waxyaabaha sunta ah. Waxaa loo yaqaanaa dark chocolate sida magaca idinka muuqata. Waa cuntadeena saddexaad ee kaga hadlaynay barnaamijkeenan cuntooyinka kordhiya maaska ama culayska qofka. Cuntadeena afraad ee kaga hadlayno waxa loo yaqaanaa cereal bars baa loo yaqaanaa. Cereal bars wuxuu ka kooban yahay vitamins buu ka kooban yahay, nutrients ayuu ka kooban yahay, nuts ayuu ka kooban yahay, fruits qudrado ayuu ka kooban yahay. Marka waa mid synthesized oo la sameeyo. Weydka qofka bini'aadankana aad buu u kordhiyaa, aadna uu kugu wanaagsan yahay inaad isticmaashana. Waxay qayb ka qaadanaysaa kordhinta miisaankaaga iyo cufkaaga qofka ayay qayb ka qaadanaysaa. Dadka dhowdhoban waxay caqabad ka haysaa si isku buurin lahaayeen. Muhiimadda ay ku leedahay inaad isticmaasho. Cuntadeena shanaad ee kaga hadlayno barnaamijkeenan sida kaga muuqata waxaa loo yaqaanaa whole grain cereals baa loo yaqaanaa. Whole grain cereals wuxuu ka kooban yahay vitamins ayaa ku jira, minerals baa ku jira, carbohydrate baa ku jirta, carbohydrate baa ku jirta, antioxidant waxyaabo jidhkaaga saara sunta ayaa ku jirta. Inaad isticmaashaana muhiimad aad u weyn ayay ku leedahay. Ka qayb qaadashada jidhkaaga kordhinta miisaankana aad iyo aad bay muhiimad kugu leedahay. Inaad isticmaashaana aad bay kugu wanaagsan tahay.
waxaa isugu jirtaa garow, waxaa ku jira digir, waxaa ku jira adigu waxaa loo yaqaanaa whole grain cereals baa loo yaqaanaa. Muhiimad ayay ku leedahay. Cuntadeena lixaad ee kaga hadlayno cuntooyinka kor u qaada maaska ama culayska jirka waxaa ka mid ah cuntada loo yaqaano eggs ama beed baa loo yaqaanaa af Soomaaliga. Beedku waa natural oo waa la helaa. Wuxuu ka kooban yahay protein ayaa ugu badan, fat ayaa ku jirta, sidoo kale waxaa ku jirta unsaturated fat maxaa taqaanay caafimaad qaba oo ahayn cholesterol aan sameynaynin ayaa ku jirta. Wuxuu kordhiyaa miisaanka qofka, sidoo kale wuxuu u wanaagsan yahay nervous systemka qofka. Marka inaad isticmaasho aad bay kugu wanaagsan tahay. Waana cuntadeena lixaad ee ku wanaagsan inaad isticmaasho. Cuntadeena toddobaad ee kaga hadlayno barnaamijkeena waxaa loo yaqaanaa cheese wuxuu ka kooban yahay fat, sidoo kale wuxuu ka kooban yahay protein, calcium iyo chloride maanta loo yaqaano. Sidoo kale wuxuu aad kugu wanaagsan yahay kordhinta maaska qofka jirkiisa. inaad isticmaashana aad bay kugu wanaagsan tahay. Qofka ay caqabada ka hayso dhuubnida inuu isticmaalo inta cunto aan soo sheegnay laba kamida ama mid kamida inuu haystay muhiimad ayay u leedahay si uu kordhiyo culayskiisa iyo maaskiisa oo muhiimad ku leh caafimaadkaaga iyo ilaalinta caafimaadka. Cuntadeena sideedaad waxaa loo yaqaanaa yogurt ama burcad ayaa loo yaqaanaa. Waxaa jira mid natural ah mid synthesized ah, marka labada ka doonto waa isticmaali kartaa. Wuxuu ka kooban yahay protein, nutrients iyo sidoo kale wuxuu ka kooban yahay wax yar oo fat ah. Muhiimad ayuu ku leeyahay inaad isticmaasho, wuxuuna kordhinayaa cufka iyo miisaanka jirkaaga. Waa cuntadeena sideedaad waana yogurt waxaa loo yaqaano burcadka, isagoo la sameeyo iyo isagoo natural ah waad helaysaa wana isticmaali kartaa. Waxaan cuntada soo tirinay inaad dhammaantood hesho muhiimad kuma lahan, laakiin waa inaad heshaa laba kamida ama saddex kamida ayaa kaga filan dhammaan baahidii aad u qabtay. Yogurt isagoo natural iyo isagoo synthesized waad helaysaa. Cuntadeena ugu dambaysa aanada sagaalaad waxa weeye waa pastada. Pastada waxay ka kooban tahay carbohydrate. Muhiimad ayay ku leedahay inaad isticmaasho, waana carbohydrate kordhinta cufka jirkana qayb weyn ayay ka qaadataa. Muhiimadna way ku leedahay inkastoo aanay fiicnin oo laga qabo waxyaabaha macaanka, haddana aad bay kugu wanaagsan tahay inaad isticmaasho. Sagaalka cunto ayaan ka hadlaynay barnaamijkeenan. Kankii ka horreeyay waxaan ka hadlay 7 cunto. aad baad u mahadsantihiin. Fadlan subscribe iyo like iyo share noo saara si ay noogu noqoto dhiirigelin wanaagsan aanan u soo badino cuntooyinka u wanaagsan qofku inuu isticmaalo. Mahad sanadiin.